بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج تoddobaadka tagay TV-ga Somali News TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. barnaamijku waxaan idin sheegaynaa aniga Cabdi Faacid Cabdillah. qodobada barnaamijku daawad doontaan waxaa kamid ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shir jaraa'id toddobaadkii tagay ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay shaqooyinka hor yaal aqalka sare ee dalka. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii soo dhaafay wuxuu soo gaaray magaalada Muqdisho waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana kala hadlay abaaraha ka jira dalka. Ambassador Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa booqasho waxa uu ka tagay jaamacadda SIU waxaana ardayda jaamacadda dhigatay ay weydiiyeen su'aalo la xiriira siyaasadda dalka. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nigel Kiitan ayaa waxa uu ka qayb galay maalinta 8 Maarso ee lagu qabtay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa 8 Maarso halkudhig waxay ka dhigteen Farmaajo iyo Geeya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka toddobaadkii tagay. haatana u diyaar garoow qodobadaas oo faahfaahsan. aanu ku horreyn gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa toddobaadkii tagay waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uuna kaga hadlay shaqooyinka hor yaal aqalka sare ee dalka. dalka Soomaaliyeed waxa ka baxay nin qiimo weyn ku fadhiya oo kamid ahaa dadkii dalkan Soomaaliyeed wax fara badan ka soo qabtay oo taariikhdiisu haddii aan idhaahno maanta inaynu sheegno ayna noqonayn inaan ku soo koobi karno warbixintan kooban in maanta bixinay. ninka waxaa la odhan jiray Cabdiraxmaan Cismaan Raage wuxuu ahaa nimaanu aniga saaxiib nahay oo aan muddo dheer soo wada shaqaynay si fiican isku naqaano aqoon-yahan Soomaaliyeed oo wadani ah ayuu ahaa. laakiin hadde waxa weeye geeridu waxa weeye qof walba maalintiisa ayay qaadaysaa oo qofna noqon maayo kii baaqi ah. kullu man calayha faanin wayabqaa wajhu rabbika dul jalaali wal ikraam. qof noolaanaya oo abad jiraya ma jiro. waxaan tacsi u diraynaa dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan oo aan uga tacsiyeynayno walaalkeen ilaahay ha u naxariistee Cabdiraxmaan Cismaan Raage oo ku dhintay dalka Canada magaalada Toronto xalay ku go'ay. waxaan dadweynaha Kasako qoyskii iyo eheladii iyo saaxiibadii uu ka tegay leenahay samariye iimaan ilaahayna isaga naxariistii janno ha siiyo. waxaan isleeyahay dadku waa dhimanayaan yacni waa qof qiimo leh oo dalkan waxtar weyn u ahaa wax badanna ka soo qabtay ayaa ka baxay maanta. waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto dadka Soomaaliyeed guud ahaanna samir iyo iimaan ha ka siiyo. waxaan u qaban karaynaa maanta ma jirto oo ma soo celin karno. allihii abuuray ayaa qaatay qof waloo inaga ihina geeridaasi wayna sugaysaa waa la kala horeynayaa
wuxuu soo galay uun dadka inaga horeeya ee kulligeen geeridaas wayna sugaysaa naxariistii janno allaha siiyo samir iyo iimaanna kulligeen allah inaga siiyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa toddobaadkii la soo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho waxaana kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo isagoona kala hadlay arrimaha ay ku jiraan abaaraha waxaan halkan maanta sharaf leh inaan ku soo dhaweeyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ah safarkii ugu horreeyay sidii uu u noqday xogayaha guud aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii waxa uuna halkan u yimid arrimaha ku taxalluqa abaaraha Soomaaliya ku habsaday sidaad ogtihiin hoola badan iyo dad waxaa bilaabay dadku inay hadda lacdaan oo ay bilaabato lacdaan soo kooxdo abaarahan uuna runtii waxaa lagu taageeraa uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la egyahay waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga ayaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah anagoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan waddanka dulqaado soo noqnoqonaya waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halkan loogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu sheego dhibka xoogga leh ee haysta intuu la egyahay baaxadiisa Mr. President, ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. I decided that I would make in Baidoa the first visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple: to express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic and hopeful. And it is exactly because it is tragic and because it is hopeful that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment. Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in 4 countries in the world: in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen, and in Somalia. There is a chance to avoid the worst. There is a chance to avoid in Somalia a situation similar like the one we had in 2011. There is an excellent cooperation between the President, the government, and the humanitarian community. Ambassador Maxamed Nuur Cali Ameerika ayaa waxa uu tagay jaamacadda SIU waxayna ardayda jaamacadda dhigata ay weydiiyeen su'aalo la xiriira siyaasadda waddanka. qofka naqanaya safiirka usually safiirada waxay u kala baxaan labo mid waxa qof safiir soo ahaan jiray oo seasonal diplomat ahaa in la magacaabo oo ka macnaheedu waxa qof soo bartay waxa kaga soo baxay diblomaasiyadda ama international relation kaga soo baxay ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda soo noqday mataqaan agaasime loo magacaabay safaarad ka soo bilaabay secretary foreign secretary consul safiir waxa qof soo ahaa waaye oo
safiir soo ahan jira ama diblomaasi soo jira wey qofka labaad wadamada hadda horumar waxa weeye qof xisbi mataqaanaa maadaama la ku doorto xisbiyada xisbigaas guulaystay ka mid ah ama qof ganacsato ah sida Mareykanka hadoo kale qof madaxweynahaas ama xisbiga gacan siiyey ayaa lagu sharfaa oo laga dhigaa safiir labadaas ayay kala baxaan arrinta soo celinta dhulkii safaaradda Soomaaliyeed waa runtii waaye alxamdulillah aniga iyo diblomaasiyiinta la shaqeynaya safaaradda Soomaaliya iyo Kenya markii la magacaabay waxyaabihii aan xoogga saarnay waxay ka mid ahayd inaan ka shaqeyno si loo soo celin lahaa dhulkaas oo anaga aan lahayn dabcan markii la shaqada loo iibsaday 1994 waxaa aad ugu shaqeeyay diblomaasiyiin kale oo markaa joogay xilligaas oo aan ahayn ninkii iibiyey oo safiirka ahaa laakiin ka hooseeyay oo dadaalay ganacsatada Soomaaliyeed oo xaafadda Sli joogay ayagana oo maxkamad qabtay oo loo qabtay laakiin wali waayay maadaama Soomaaliya dowlad aan lahayn ayaan dib u bilawnay waxaan u qaadatay ilaa iyo 4 sano December 7 2010 ayay ahayd markii aan ku guuleysanay oo aan mataqaanaa maxkamadda ma xukuntay kadib calankeena ka tagay dhulkeenii oo ilaa hadda anaga aan leenahay ilaahay waa mahad iskale Usmaan wuxuu yiri sidee loo sameyn karaa dib u heshiisiin waxaan qabaa dib u heshiisiin waa in laga bilaabo marka hore oo aniga aan aaminsanahay hadda waxa lagu dhaqmo oo 4.5 ka ah in la baabiyo 4.5 waxay ahayd wax inay ahaato si ku meel gaar ah oo la rabay in loo gudbo mataqaanaa loo gudbo dadkeena way sameeyeen hadda waxaan moodaa in ay soo dheeraatay ilaa iyo xubnaha dowladii Cabdiqaasim madaxweynihii in Djibouti lagu soo gaaray hadda ilaa hadda socoto anaga waxaan nahay Soomaali maadaama nahay muslim baan nahay qof walaalka oo kula mid ah maybe ka xoog badan ka qurux badan sawdaysa maswa how can it be mahalla haf wa xaraan waay waxa mudaa cuqubadaha haysta ama dhawaataan haysta waxa aaminsanahay inay ka mid tahay taas oo aan dhahayno qof walaalkeena nala mid ah waa nus waa haf inta la dhahayo Soomaaliya aniga waxaan inta dhibka laga baxay waxaan rajeynayaa dowladda hadda dhalatay la doortay arrintaas laga laaban doono la baabiin doono dadka way sameeyeen mid kale qoomiyad ayaa leeyahay waxa way waxa ka badan kuwa kale waa hal yaa tiri yaa soo gaad maybe kuwa dhahay nus ayaa ka badan kuwa ka badan marka waxa way insha Allah taala taas wato in la joojiyo waaye mid kale saan sheega daayto waxa loo baahan yahay in dadka la soo fariisiyo in dadka ay soo fariistaan la hadlo la isku calafiyo waado wadan gudihiisa dib u sida ka dhacdo mataqaanaa daasaan sheegana kii wax qabay kale ay soo fariistaan la is cafiyo ayaa imaan kartaa dib u heshiisiin ay maamulayso ay wado ay hogaaminayso Soomaali waa inay ahaataa way ajnabiga naga dhex baxan markaas ayaa sameyn karaa arrinta maxkamadaha iyo judiciary-ga cadaaladda waxay imaanaysaa in loo madax baneeyo judiciary-ga waa qayb muhiim ah oo dowladda ka mid ah laakiin waxaa muhiim ah oo hoos ka xariiqaya waa inay ahaataa qayb madax bannaan haddaynan lahayn madax bannaani wax ma xukumi karaan xukun cadaalad ah ma dhici karo marka taasna waa muhiim oo loo baahan yahay Yusuf wuxuu yahay arrinta dhaqaalaha ka dhexeeya xiriirka iyo amniga dabcan xiriirka ka dhexeeya hadduuna amni jirin dhaqaale lama sameyn karo dhibaato haddana haysto ayaa ugu horeyso haddaa isaan sheegay waagii hore markaan amniga lahayn nabadda aan qabnay beeraheena aan fulan jirnay beeraha wax ka soo baxa ayaa intaan cunno ayaa hadda dib loo dhoofin jiray wadamada dibadda waxaan xasuustaa ilaa Yurub mooskeena iyo mataqaanaa bambeelmada waxaa la dhihi jiray ilaa hadda la dhahaa waa kuwa ugu macaan adduunka hadda laakiin lama dhoofin karo maybe xogaa la dhoofiyaa laakiin sidoo looma dhoofin karo lama tabco xataa sidoo looma tabco amni darada awgeed waa marka dhaqaalaha iyo amniga way isu socdaan waana muhiim in amni la helo si dhaqaale fiican loo helo
gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay xafladda 8 Maarso ee lagu qabtay xarunta Xarane ee magaalada Muqdisho. And I just want to say how touched I am by the award we were given. But I do want to acknowledge other colleagues in the UN. Shipra Bose, where's Shipra? She's there. And all the women in the UN, all the women in the UN. Yeah. But I also want to acknowledge some of the partners, the international partners here, not just the EU and IGAD and the African Union, but a number of member states who have put a lot of effort and money into supporting the women's movement in this country, including over the last 6 months. saaxiibada kale ee beesha caalamka oo aan marka laga soo tagay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee iyaga qarash badan iyo taageero badan ku bixiyay sidii loo xoojin lahaa doorka haweenka ee Soomaaliya. But ladies, this was your victory. It wasn't our victory, it was your victory. Wagushini, Wagushini, Wagushini. Tani waa guushiina haweenka Soomaaliyeed, tani waa guushiina ma aha guushiina waa guul idinka aad gaarteen. So, as somebody said yesterday, the Secretary General of the United Nations came as an act of solidarity with the people of Somalia, and I was lucky enough to be present for his very rich discussion with President Farmajo. waxaan rabaa inaan sheego in shalay ama sida loo keenay shalay uu soo booqday xogayaha guud ee qaramada midoobay si uu u muujiyo garab istaagiisa ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu galeen waxaan aad u faraxsanahay oo sharfi ah inaan shalay goobjoog u ahaa wada hadalkii uu la galay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. And there were 4 things they talked about in particular. The first was the drought. waxay afar arin ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay arinta koowaad waxay ahayd abaaraha. The second was conflict resolution and reconciliation. tan labaad waxay ahayd sidii loo xalin lahaa khilaafaadka jira dib u heshiisiinna loo sameyn lahaa. The third was the president's determination that Somalia starts delivering basic services including security, health and education. tan saddexaad waxay ahayd rabitaanka madaxweynaha ee ah inuu hirgeliyo waxyaabaha asaasiga u ah bulshada Soomaaliyeed sida ammaanka iyo caafimaadka. And the need to get revenues to do that, not just from the international community but from Somalis. iyo sidii dhaqaale loogu heli lahaa in howlahaas lagu tallaabsado kaliya maaha dhaqaalahaas in laga helo beesha caalamka balse ay tahay in laga helo dadka Soomaaliyeed. And they also talked about how to make the federal system stronger, both at the center, at the state level and also at the local level. sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa hirgelinta federaalka labadiisa dhinac ee heer federaal oo dawladda dhexe iyo heer hoose ee maamul goboleedyada ka jira waddanka. And my message to you today is none of these 4 things can be achieved without women's involvement, and none of them will be fully successful without women's leadership. waxaan rabaa markii aan idiin sheego afartaas arrin ee ka wada hadleen madaxweynaha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay inaan mid ka mid ah lagu tallaabsan karin ayadoo haweenka Soomaaliyeed aanay qayb ka ahayn. And this is not just blah blah. I mean, 1 year ago I was here for Women's Day, and had we said a year ago that 25% of the federal parliament would be female, people would have laughed. They would have said, yeah, well, keep on dreaming. Look, you did it. You did it. hal sano ka hor waxaan joogay halkan waxaan ka qayb galay munaasabadan waxaan ka hadlaynay haweenka inay ay ku lahaadaan dawladda la soo dooranayo laakiin dadku waxay dhahayeen markaas waa riyo waa lagu qoslayeen laakiin maanta waxaan xaqiijinay 25% inay qayb ka yihiin ama ay ku jiraan ama la xaqiijiyay in haweenka ay soo galaan baarlamaanka cusub ee la doortay marka waa sameeyay waa la guuleysatay. You know, yesterday I was in Baidoa with the Secretary General,
with Peter and other colleagues, and I met lots of young people and women and men who've just been displaced by the drought. And I asked the children, you know, when's the last time you went to school, and are you going to school in this IDP camp? And the boys said, yes, we're going to a madrasa, and the girls are not going, they're not getting any education, even in this emergency environment, only the boys. shalay waxaan aaday baydhabo waxaan la socday xogyaha guud ee qaramada midoobay waxaan la kulmay dad ku soo barakacay abaaraha caruurtii ayaan weydiiyey inay iskuul aadaan in kale wiilashii waxay ii sheegeen inay madraso aadaan laakiin ma arkin gabar iskuul ama madraso aaday ku nool magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland ayaa 8 Maars hal ku dhig waxay ka dhigteen arfarmaajo igeeya sidaa daraadeed waxaan u soo dagaalanay oo aan u soo halganay inaan 30% ka helno dawladda baarlamaanka xukuumadda hay'adaha maxalliga ah iyo shirkadahaba waxaan ku guuleysanay 25% inaan helno sidaa daraadeed waan sii wadi doonaa dadaalkaasna ayadoo ay dawladdeena anaga aad iyo aad Jubbaland madaxweynaheena uu gudistay in aan helno 25% oo asaga go'aan ku gaaray inuu asteeyo gabdhaha Soomaaliyeed xaqa ay leeyihiin waxaa maanta farxadda oo la hadli lahay waa farxad codkii baa iga xiran waa farxad baan la hadli lahay waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalinka hooyo oo caalamku ay ka socoto dabaaldeg waa maalinka haweenka Soomaaliyeed waa maalinka haweenka Jubbaland waxaan aad iyo aad maanta ugu mahad celinayaa wasiiradayada inay maanta shaqo xoog laalka ay ka qabatay oo waxay hawshay hayso oo haweenka u haysay maanta waxaad madaxweyne iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka maanta marqaati waxa idin indhiina waartaan haween wax taagan hawlkii waa buuxsamay dhanka kale waxaa goobta hadal ka jeediyay wakiilka u qaabilsan Jubbaland UN Mr. Benjamin isaga oo na sheegay Today we want to celebrate the International Women's Day, and I have a small message from the Secretary General. First of all, let me start by congratulating Jubbaland for the very successful elections. And we were also able to elect at least 9 women representatives. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland shalay ayuu haweenka marti qaaday hambalihiisa uu idin qadimay haddana mar labaad ayuu diisu hambalihinay munaasabadan caamta u fadhidaan hambaliyo idin soo yiri warta guddooma talabaad anagtayda ku biirnay waxaa leeyahay hambaliyo 8 Maarso waa maalinta haweenka adduunka waxaan leenahay adduunyanaha hambalyo baaqaya aan ka codsanaya inay u diyaargaroobaan xoreynta deegaanada Jubbaland ka maqan ee gacanta loogu jiro Jubbaland waxay u taabsanaysaa xoreynta deegaanada gacanta loogu jiro daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka toddobaadka tagay ee TV-ga Somali News TV barnaamijka waxaa idin soo jeedinaya aniga Cabdikaafi Cabdillah dhinaca farsamada iyo kaamirada waa Fuad Shobel Cafe dhinaca baahintana waa Faysal Hanad tan intaan barnaamij la mid aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo